wuxuu ahay xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin muxuu ahay mashruucan runtii oo dadaalka moralka iyo dhiirigelinta gudoomiyuhu ka hadlay marka laga soo tago naqshada lagu howlgalayo oo injineeradu ay ka shaqeynayaan annagu dawladda Hirshabeelle haddaan nahay dawlad goboleedka federaalku wuxuu u shaqeeyaa wixii naga awood bata inaan dawladda inaan micin aan weydiisano dawladda annaga weydiisanay inaan farsamo ahaan aanan ku filnayn in muxuu ahay webiga hadda aan xirno injineerana loo soo diray saraakiilana loo soo diray madaxana loo soo diray wasiirana loo soo diray in micno kale loo fasiro oo la siyaasaday aadan uga xumahay taas waqti kale aan si fiican uga hadli doonaa waxay injineeradan iyo mas'uuliyiintan halkaan u joogaan kaliya biyahan in la xiro maaha xalka waara oo in arintaanu ay mataqaan ay ku dhamaad doontane inay ficilkii ayagoo u jooga naqshadeeyaan waxa xoogaa ganacsatada shaqo fiican ay qabteen amaanay muujiyeen waa la wada sheegay dalka iyo dibadiisa laakiin gudoomiye hal shay aan ku sheegaa ganacsatada lacagta loo dhiibay waa lacag dadka Hirshabeelle loogu tala galay amaana loogu dhiibay lacag muxuu ahay aad mahmahdaadi maxay ahayd hooyadaaba weydiisay ka rabtaa ma weydiinaysid hadda tu kala soo socota ayagaan u dhiibaynaa meel kale geyn mayno laakiin annaguna meeshay ku baxday inaan la soconaan rabnaa amarkaaday ku shaqeynayaan injineerada taladooday ku shaqeynayaan hawshii la qabanayo ku shaqeynayaan haddaysan intaas aysan samayn karin bannaanka ha ka istaagaano wanaagooda iyo fiicnidooda iyo mataqaanaa quruxdooda meel kale ayay ka anfacaysaa laakiin hawshaanu waa hawl u baahan garbaha in la isqabsado haddaan garbaha la isqabsanayn oon talada